السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحران جنال كمركة لسود دوادة أدي أدو مهسنتين مانتو وأربعو لحية تبانكا بشا أفراد سنة كاللبادة كون إيا شان ياللباتنكا مقال كانوا حربا إنا ندي كل وداغو وزارة دارمها ديبادة مريكنكا أو شاكتي إن أي حريسو سفاردو إيا قنسوليادو أي كل هاي دمان بقاردها كالدوان arrintaasi ayaan idinla wadaagayaa taasi oo la leeyahay tartanka Mareykanka iyo Shiinaha ka dhaxeeya waxay u muuqataa markaasi Shiinuhu in uu kaga guuleysanayo Mareykanka hadaba arrintaasi waan idinla wadaagayaa sidoo kalena dowladda Mareykanka oo amar ku soo rogtay kadib markii Trump uu wareegto saxiixay ardayda wadanka ku joogta viisaha waxbarasho kuwa green card-ka haysto kuwa viisaha shaqada ku jooga dhamaantoodba amaradaasi maxay tahay wiil kale oo Falastiiniya oo isagoo interviewgiisii oo baasaboorka Mareykanka ku qaadan lahaa u tagay goobtii looga qaadi lahaa haddana ciidamada ICE ay xireen arrintaasina sidoo kale waan idinla wadaag maamulka madaxweyne Trump markii ay xilka uu la wareegay waxa uu horeyba ka bilaabay in shaqaalihii dowladda federaalka ah uu yareeyo arrintaasi wadanka gudihiisa oo kaliya ma aysan ka dhacayn wadanka dibadiisana Mareykanku safaaradaha iyo qunsuliyadaha uu ku leeyahay caalamka arrintan waa ay saameysay iyadoo horey loo ogaa in shaqaalaha qaar ka mid ah safaaradaha la dhimay ayaa hadda waraaq la helay oo ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda oo safaaradaha iyo qunsuliyaduhu ay hoos yimaadaan isla markaana wargeyska New York Times uu helay waxay muujinaysaa in wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ay qorsheynayso inay xirto safaarado dhowr ah iyo waliba qunsuliyado dhowr ah oo qaarada kala duwan oo caalamka Mareykanku uu ku lahaa maamulka Trump ayaa waxa la sheegay hadda inuu qorsheynayo in 10 safaaradood iyo 17 qunsuliyadood uu xiro halka uu yareynayo qaar ka mid ah shaqaalaha sidoo kalena safaarado iyo qunsuliyado kale ee caalamka iyaguna ka shaqeynayay sida wargeyska New York Times uu soo xiganayo maamulka Trump ayaa waxa uu sheegay in uu doonayo in shaqaalaha dowladda federaalka uu yareeyo 50% si lacagaha dowladdu ay qarash karayso loo yareeyo arrintaasina gudaha wadanka ay ka socotay laakiin hadda wadanka dibadiisa ayay u dhaadhacaysaa marka arrintan la soo jeediyay waxa la leeyahay waxa ay mar kale caqabad ku noqonaysaa tartankii Mareykanka iyo Shiinaha ka dhaxeeyay oo hadday Mareykanku safaaradahan xiro Shiinaha ayaa marka waxa ay kala wareegayaan galangalka ay ku leeyihiin wadamada caalamka maadaama Shiinuhu inta badan uu isku sii ballaarinayo Afrika iyo meelo kala duwan oo Yurub ah waxaana arrintaasi ay qatar ku tahay la leeyahay ammaanka qaranka iyo ururinta sirdoonka maadaama meel kasta oo sidoo kale safaarada ama qunsuliyada ay ku joogtana aad heli karto waxyaabaha wadankaasi ka socdo marka arrintan la soo jeediyay safaaradaha la xirayo 6 kamid ah waxay ku yaalaan qaaradda Afrika waxaana wadamada safaaradahooda la xirayo kamid ah Central African Republic, Eritrea, Gambia, Lesotho, the Republic of Congo, South Sudan dhamaantoodba safaaradahaasi waa la xirayaa Mareykanku 6daasi wadan oo Afrikaanka uu ku lahaa howlihii ay qaban jireen waxa loo wareejinayaa safaaradaha ama qunsuliyadaha wadamada dariska la ah wadamadaasi safaaradahooda la xirayo sidoo kalena laba safaaradood oo aad u yaryar oo ku diilay laba wadan oo Yurub ah ayaa la xirayaa sida Luxembourg iyo Malta safaaradihii Mareykanku ku lahaana sidoo kale waa la xirayaa sidoo kale diplomatic missionsku safiirna ma uusan gaarin qunsuliyadna maahan marka waa qof matalaya dowladda Mareykanka oo wadamadaasi joogayna sida Grenada iyo Maldives iyagana sidoo kale waa laga soo wadayaa waxaana loo wareejinayaa howlihii ay qaban jireen wadamada dariska la ah laakiin inta badan qunsuliyadaha la xirayo waxa ay ku yaalaan midowga Yurub wadamada Yurub ay ku yaalaan waana inta badan wadamada dadka Mareykanka ah ay u tagaan dalxiiska ayaa ah meelaha ugu badan ee la xirayo 5 qunsuliyadood waxay ku yaalaan wadanka Faransiiska oo la xiri doono waxayna ku kala yaalaan Bordeaux, Lyon, Marseille, Rennes iyo Strasbourg ayay ku kala yaalaan laba waxay ku yaalaan Jarmalka waana Düsseldorf iyo Leipzig halka sidoo kale laba kalena ay ku yaalaan Mostar iyo Banja Luka oo Bosnia and Herzegovina ka tirsan intaasi waa qunsuliyadahaasi albaabada ayaa la isugu dhufanaya sidoo kale qunsuliyada kale oo ku yilay wadamada Greega, Talyaaniga, Portugiiska iyo sidoo kale Edinburgh, Scotland iyagana sidoo kale waa la xiri doonaa marka waxaa jirta sidoo kale in qunsuliyada kale oo ay wadamada ay kamid tahay Cameroon oo Afrika ah Indonesia iyo sidoo kalena Durban South Africa iyo South Korea iyagana sidoo kale la xiri doono
marka dhammaanba arrintaasi saameyn ayay ku yeelanaysaa dadkii wadamadaasi ku sugnaa ama safaarada ama qunsuliyado u baahnaa. sidoo kalena waxaa jirta in safaaradda Maraykanku uu ku leeyahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ay ka mid tahay hadda in laga fikirayo in gebi ahaanba la baabi'iyo iyo in la yareeyo shaqaalaha halkaasi u jooga. waxaa sidoo kale ka mid ah safaaradda Maraykanku uu ku leeyahay caasimadda waddanka Ciraaq ee Baghdad ayaa sidoo kale ka mid ah, iyo qunsuliyadii Erbil uu ku lahaa oo laga fikirayo. laba qunsuliyadood oo Maraykanku, Japan iyo Canada uu ku leeyahayna sidoo kale waxaa laga fikiraya iyagana in la xiro. marka arrintaas waxaa la leeyahay in Maraykanku looga awood badin doono oo Shiinaha uga awood badin doono Yurub, Africa iyo East Asia iyo sidoo kalena wadamo kale oo dhowr ah, maadaama uu yareynayo shaqaalihii uu safaaradihii uu halkaasi ku lahaa. arrintaasina inay saameyn ku yeelato. sidoo kale waxaa ay u badan tahay in shaqaalaha safaaradaha muhiimka sida Nairobi, Addis Ababa, meelo badan ku yaala in shaqaalaha la yareeyo, arrintaasi oo saameyn ku yeelan karta dad fara badan oo interviewye iyo waxyaabo kale safaaradaasi ay uga ballansanayeen ama ay uga xiran yihiin. haddii shaqaalaha la yareeyo, markastaba shaqadu waa ay sii badanaysaa, dadka shaqadaasi qabanayana waa ay yaraanaysaa. arrintaasina sidoo kale waa ay jirtaa. dhinaca kale, dowladda Maraykanka ayaa waxa ay soo saartay ogeysiis cusub oo ah dadka green cardka waddanka ku jooga iyo sidoo kalena dadka studentiga ardayda ajnabiga ah ee waddanka ku jooga visa waxbarasho, viisaha shaqo ee H1B la yiraahdo. dhammaantoodba waxaa la yidhi mar kasta waa inay haystaan wax cadaynaya in Maraykanka ay sharci ku joogaan. Kenya ma ka arki jirteen letter kibanda, haddii lagu yiraahdo waa in oo lagu istaajiyo, waa inaad sheegi kartaa waxyaabaha aad waddanka ku joogto. green card ayaan haystaa, kaar shaqo ayaan haystaa, visa waxbarasho ayaan ku joogaa, waa inaad mar kastaba aad cadayn karto. marka laga bilaabo bishan Abriil 11keedii amarkaasi waa dhaqan galay. wareegto uu madaxweyne Trump uu saxiixay oo loogu magac daray difaacidda dadka Maraykanka duulaanka ay dadkan sida sharci darrada waddanka kusoo galay ay kusoo qaadeen ayaana loogu talagalay. arrintaas sidoo kale waxay daba joogtaa in website-kii wasaaradda amniga gudaha ay sheegtay in qofku marka waddanka sharci darro uu kusoo galo muddo 30 maalmood gudahooda dadka, iyo weliba haddaad sharci kusoo gashaba 30 maalmood ka badan haddii aad joogayso in aad isdiiwaan geliso haddii aad 14 sano jirto amaba aad ka weyntahay. caruurtu sidoo kale 14 sano marka ay gaaraan 30 maalmood kadib dhalashadooda waxaa loo baahan yahay in la diiwaan geliyo, farana laga qaado. arrintaasi marka waxa ay noqonaysaa in laga soo bilaabo bishan Abriil 11keedii ay qasab tahay qofku in waddanka haddii uu sharci kusoo galo iyo haddii sharci darraba uu kusoo galo dowladda federaalka uu iska diiwaan geliyo muddo 30 maalmood gudahood. haddii aad samayn wayso arrintaas waxaad mutaysan kartaa ganaax amaba xabsi amaba labadooda ayaad mutaysan kartaa. marka arrintaasina sidoo kalena waa arrinta hadda maamulka Trump uu leeyahay. sidoo kalena qofku haddii uu address change samaynayo oo addresskii uu deganaa uu ka guurayo muddo 10 maalmood gudahooda waa inuu kusoo report gareeyaa in addresskan uu ka guuray oo addresskiisa bedeshaa. qofku dadku markay waddanka ku cusub yihiin oo qaxootiyahan ay ku yimaadaan waxaa jira form la yiraahdo AR11 oo qasab ay tahay qofku ilaa iyo muwaadin uu ka noqonayo in addresska uu ka guuray, amaba online waa uu ka xareyn karaa amaba formka intuu daabacdo ayuu buuxiyo ayuu boosta ahaan ku diri karaa. marka arrintaasina waa ay jirtaa, qofku 10 maalmood gudahood waa inuu kusoo report gareeyaa haddii addresska uu ka guurayo address kale uu tagayo. sidoo kalena maamulka Trump waxay sii wadaan bartilmaameedsiga dadkii Falastiiniyiinta ah ee hormuudka ahaa mudaharaadyadii shacabka Falastiiniyiinta lagu taageerayay oo jaamacadaha Maraykanka ka dhacayay. waxaa sidoo kale Isniintii la qabtay wiil Falastiini ah oo la yiraahdo Mohsen Mahdawi, isagoo weliba gobolka Vermont u tagay wareysiga ama interviewga uu ku qaadan lahaa baasaboorka Maraykanka. wiilkan oo la yiraahdo Mohsen Mahdawi waxa uu green card haystay ilaa iyo sanadkii 2015 markii uu wareysigiisii tagayna ciidamada ICE ayaaba qabtay. waa kan isagoo gacmaha ka jeebaysan oo gacmahana kor u taagaya. haddaba looyarkiisa ayaa wuxuu sheegay inuu maxkamad federaal u gudbiyey amar uu ku doonayo in aan laga saari gelin gobolka Vermont amaba sidoo kale countygaasi oo aan inta badan Louisiana iyo meelo kala duwan ayaa lagu xiraa oo loola cararaa. marka arrintaasina waa ay jirtaa oo isaguna waa uu xiran yahay hadda. sidoo kalena aqalka cad
waxaa sidoo kalena ay jebinayaan amarkii maxkamadda sare ka soo baxay oo ahaa inay soo celiyaan ninkii sida qaladka ah waddanka El Salvador ay ugu musaafuriyeen ee Kilmar Abrego Garcia ahaa. Shalay ayaa xaaskiisa iyo qareenadiisu maxkamadda Maryland qareenkii Paul Shinis ay ku laabteen. Qareenkuna waxa uu yidhi waxaan doonayaa dowladdu inay sheegto sababta amarkii maxkamadda ay ugu hoggaansami waysay, waxaana uu sheegay inuusan u dul qaadanaynin arrintan geem ciyaarista oo dowladda looga baahan yahay in arrintaasi ay jawaab cad ay ka keento. Maamulka Trump waxay leeyihiin inagu ninkaasi soo ma celin karno. Trump iyo madaxweynaha El Salvador Nayib Bukele oo jimcihii kulmayna waxa uu sheegay madaxweynaha El Salvador anagu ninkaasi soo ma celin karno. Hadda maamulka Trump waxa uu leeyahay ninkaas MS-13 ayuu ka tirsanaa, waddanka sharci darro ayuu ku joogay, qalad maba loo masaafurinba, si sax ayaan u masaafurinay, waddankana kuma soo celin karno. Waxaan ognahay maxkamadda sare 9 garsoore inay dowladda ku amreen maamulka Trump inay gacan ka geystaan sidii ninkaasi waddanka loogu soo celin lahaa. Maamulka Trump waxa uu leeyahay hadda haddii ninkaasi la soo celiyo waan masaafurin doonaa oo waddan kale ayaan u masaafurin doonaa, aan waddankana waan ka saari doonaa haddii mar kale la soo celiyo. Sidoo kale senator dimuqraadi oo laga soo doorto Maryland oo ah gobolka xaaskiisa iyo ninkaasi ay deganaayeen ayaa oo la yiraahdo Chris Van Hollen ayaa saaka u safray waddanka El Salvador isagoo doonaya inuu gacan ka geysto si ninkaasi loo soo deyn lahaa. Marka arrinta ninkaasi waa ay sii ballaaranaysaa, waxaana garsooruhu shalay uu sheegay maamulka Trump amarka maxkamadda haddii uu u hoggaansami waayo in lala xisaabtami doono maamulka Trump oo arrintan geem ciyaarista uusan aqbali doonin. Arrinta ninkaasina waxay ka soo kordha wayna arki doonaa. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkeen Cilmi Waaro idinla sida iyo nabad.